inan maxaa la sheegayay dhuxulaysatada ahaa ee noo joogay sool meelaha sool dhuxusha guran jiray ogoydeena dhiigyo cabkaa mise juulaan soo diray wiilashaa yaryar haddaadan si degdeg leh noogu soo dhiibin iyo tuutayaashayadii degdeg baan kugu soo gelaynaa haybe iyo ninka la dhaho maxamuud cali seeraar midina jamaahiirna mu ahayn esisina wax kama ahayn labadaba in cambaashaa marka horeba khalday haaf qiyaamihii baana wuxuu dhimay labadaba waa ogtihiin oo mise way ognahay aan looga fiiqin halkaa ku taala annaga labada wiil calaamadaasaa nooga qiimo badan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. halkan waxaan ka salaamayaa jamaahiirta ACC dhammaan meelaha ay joogaan waan salaamayaa. salaanka bacdi waxaan halkan ka sheegayaa oo ka cadaynayaa labadii inan maxaa la sheegayay dhuxulaysatada ahaa ee noo joogay sool meelaha sool dhuxusha guran jiray ee masaakiinta ahaa ee labada shaad naga xaday labada tuute naga xaday ayaan halkan cod uga dirayaa. ninka iimaan kale ee halkaa fadhiya ee maxaa la sheegayay aad ogoydeena dhiigyo cabkaa mise juulaan soo diray wiilashaa yaryar haddaadan si degdeg leh noogu soo dhiibin iyo tuutayaashayadii degdeg baan kugu soo gelaynaa. maxaa la sheegay labada wiil ee yaryar masaakiinta dhuxusha noo digi jiray ee dhuxulaysatada ahaa ee naga soo baxsaday ee naga soo tegay shaharka naga soo xaday ayaan saaka halkan fariin uga diraynaa. haybe iyo ninka la dhaho maxamuud cali seeraar midina jamaahiirna mu ahayn esisina wax kama ahayn labadaba in cambaashaa marka horeba khalday haaf qiyaamihii baana wuxuu dhimay labadaba waa ogtihiin oo mise way ognahay in haaf qiyaamihii maalinta wuxuu dhimay oo labadaba intay wareegeen sool galeen labada wiil ee labada shaad naga qaatay ee tuutayaashaa baanu doonaynaa aan looga fiiqin halkaa ku taala annaga labada wiil calaamadaasaa nooga qiimo badan meel kastana calaamadaasaa nooga qiimo badan muuse juudaan calaamadaa u arkay ayaanu ka qaraacansannahay saaka muuse juudaan iyo marxuumka iyaga halkaa fadhiyana waanu ka daba imanaynaa. marxuumka iyaga annaga ogsaan u gelin annaga inoo taallaa soomaad garan labada wiil yar khalkhaldan ee marna aanu kuga ka dhigan jirnay marna dhuxusha loo soo digi jiray dee hadday xanuunsadaan oo waashaan hadhowta ha odhanina niman baa noo soo galay nimanku way naga xanuusteen dhuxul bay digi jireen meelahoodaasay joogeen markuug bay ahaayeen haaf qiyaamihii baa wax u dhimay daway cuni jireen oo dawadii ay cuni jireen ayaa ka dhammaatay kabacdi laba tuutay soo qaateen labadii tuute ay soo qaateen ayaanu saaka halkan ka cadaynaynaa hadday wax naga gaadhaan tuutayaashayadii somaliland tuutayaashayada annaga aad noogu qiimo badan labadii tuute ay labadaa wiil soo qaateen labadii tuutaanu rabnaa si degdeg leh iyagoo weliba aad dhaqdeen wayna noo soo dhigtaan. bismillaahi raxmaani raxiim halkan waxaa ka salaamayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel kasta ay joogto waxaan isu soo taagay halkan inaan dhowr qodob kaga hadlo. dhowrka qodob waxaa ka mid ah qodobka ugu horeeya waxaan arkay ilaa xalay niman baraha bulshada la wareejinayo la leeyahay waxay ka soo goosteen jamaahiirta ACC waxaa la yiri rag yaa ugu liitaa la yiri waxaa la yiri ninka markuu joogana aan la tabin markuu maqan yahay inaan cidi tirsan horta Soomaaliland ay anagu kuwa ma aan tirsan jirin maatiin yimi markay nala joogeen markay hadda ay naga maqan yihiin tabi weyn tabi booliyoobayo waxaan ku kuwa u baahan oo waxaan ku daba ordayana ma nihin annaga waxba nagala qaalistanaa calaamadda ACC ee Soomaaliland maanta dhex taagtay fiidiyodoodii waxaan ku yiri ay iskaga duubayeen ta kale waxaan leeyahay ina bulaale hadaladiisa waxaa ka mid ahaa waxaan cafiyayaa garaadada iyo waxaan cafiyayaa jamaahiirta ACC iyo garaadada iyo saddex iyo soddonka inta mooyaane dadka inta kale waa cafiyayaa waxaan leenahay war cid haddaad cirkii dhulka u kala haysid cidna ha cafiyin